Asalaamu calaykum, waa aniga Axmed Muuse. Maanta videogan waxaan rabaa inaan ka hadlo laba shay oo muhiim ah. Marka videogan ma video tutorial oo waxaan sameynayna maaha. Marka waxaan rabaa inaan sheego Blender 4.0 eberka hadda ma dhow soo bixi rabo waxaa ku jiri doono note-kan oo la dhaho material note. Marka waa note aniga weydiistay oo aan ku dhahay taa ku soo dara oo fikradda aan la imaaday oo kadib lagu soo dari doono. So marka just that cool waa maadaama Blender waxaa isticmaalayay 5 sano ama 6 sano camal oo haddana request dirsaday dhahay note-kan lagu soo daro markay ku soo dareen that's cool laakiin waa tan labaad arrin inaan ka hadlo waxay tahay inaan mataqaanaa video soo geli doonin ilaa 5 bilood ilaa 6 bilood ama ilaa 7 bilood xataa inaan video soo geli doonin sababtan ay tahay hadda inaanan waqti haynin aan ku sameeyo videoyaal iskoolka ay bilowday haddana waxaa helay shaqo aan shaqeynayo 6 maalmood shaqeynayo isbuucii marka waqti ma heli dooni aan videoyaal ku sameeyo iyo waxaas kor iyo hoosbo haddii aan sameyn karay xataa tan kaloo ka dhigaysa inaa video sameyn karin waxay tahay laptopka haysto laptopkan haddaa fiirsteen videogan waxaa uga hadlay laptopkayga quwadiisa iyo inta la gado iyo waxay muhiimad ahayd inaan ii sheegayay inaan muhiim ahayn inaa haysidid computer fiican inaa sameysid art farshaxanayaal mataqaanaa qurux badan ama filmaan ama animation xataa game xataa inaan ahayn muhiimadda inaa haysatid computer quwad badan laakiin noloshaan ka balmaysi kartid moogtaa mar le waxaa imaan doonta uu computerkaaga uunan waxaad u baahan tahay inuu kuu qabto una qaban karin hadda tusaale kale computerkan waa computer macbook air oo soo baxay 2017 macbook pro maaha ma lagu talagelin waxaa loo yinayaa in lagu sameeyo quwad badan waa macbook air oo super light oo lagu talagalay dadka shacabka inay gataan oo si wax ku aqriyaan youtube ugu fiirsadaan bisle iyo online ay galaan bisle hooyadii hadii aan u keentay 2017 waxa way hadda 8 sano ka hor ahayd asiga olba quwad lahayn una GPU wax dhan lahayn CPU ga xataa core mataqaana waxa waaye marka dhahayd render bahalooyinkan oo yariisko render ka sameynayaan laba core bis uu leeyahay halkii second laba calculation soo sameyn karaa laba xabo maadaama ogta render kala sameynaa waa xisaab moogtahay laba xisaab buu sameyn karaa laba xisaab uu sameynaa ma ku dhamay laba kula bilaaba haddana laba kale laba uu sameynaa marka sidaas daraaddeed waxay qaadan kartaa inuu waqti badan qaato render yaroo fudud xataa haddaa fiirisid laptopyaasha socdaan iyo PC-yaasha waaweyn iyo RTX camal waxay haystaan 24 qaarkood 30 qaarkood 60 core haystaan 60 maskax oo mid walba xisaab gooni sameyn karo soo marka haddaa render dhahdid isla markii dhaqso sameynaa mogtahay soo marka gigabyte badan xataa computerkan haddaa sameyn lahaa xataa faylal badan hadda computerkaygu waxaa waaye 256 wax badan waaye laakiin haddaa haysatid 8 sano ama isbuuc walba sameynaysid farshaxan gooniye waxaa u baahan tahay meel aad ku save garaysid moogtahay videoyaalna waa sameeya youtube-ka kuwaasna meelna ku save garaysid u baahan tahay isbuuc kasta waxaas arkaa anigoo computerkayga faali ka galayo oo kala lid gareynayo faylyaasha badanaa ku wada jiraan soo marka taas xal ma noqonayso marka waa inaan computer fiican gataa marka hadda waxaan ku fikirayaa marka maadaama shaqo helay inaa joojiyo youtube-ka ilaa 5 isbuuc 6 isbuuc waana waqtiga iskuulkayga dhammaan doona moogtahay ilaa sanadka cusub bisha abriil camal oo kale kadibna hal mar aan soo gato computer fiican oo marka insha Allah samarka soo socda la gaaro ama samarka wax yar ka hor inaa computer fiican haysto aan sameeyo videoyaal iyo animationyaal iyo tutorial quality leh maribina iska sameeyo video okay oo dhaqso ku sameynayo fast moogtahay hadda computerkan video kasta aragtid aan soo saaray oo soconayo 8 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo xataa ugu badnaan waxay ugu qaadataa 12 saac ay ku qaadataa kan soconayo 10 daqiiqo 12 saac ay ku qaadataa isma video 10 daqiiqo soconayo soo marka maadaama ay arday haddana aan shaqeeyo 10 saacadood isbuucii miskeli kari moogtahay hadda iska helabo 5 saacadood nasiib aan leeyahay soo marka waxa u baahnaa computer oo waxaan dhan hamar ku sameynayo saacad wax ka yar hamad waxaa jira animation ay sameeyaan laxdaas oo soconaya 5 second bis 5 second waxay ku qaadatay 2 bilood inaan sameeyo modelka bis hal isbuucna computerkayga inaa render dhaho suuga bis oo daaqad ag yaala suu hawada uu qaboojiyo maskaxda yar oo CPU-ga yar oo labada core bis 6 second waaye halkii frame waxay qaadanaysay hal saac mala umaleynaa waxayna ahayd 140 camal oo frames camal ahayd marka aniga quality fiican aan inaan sameeyo oo animation fiican aan inaan sameeyo haddana computerkana maxaa li kari moogtahay waa macbook air so haddana super old moogtahay waa soo sayid u duq yahay soo marka hadda baahantiin oo kale inaa aragtiin meelooyin soo saari doono farshaxan kulliba kor iyo hoos marka waqtiga la blender ma jooji dooni waa inaan fadhiisto waxaan sameyn doonaa animationyaal iyo
waxaliin fudud sameyn doona laakiin ma ka sameyn dooni video tutorial ma ka sameyn dooni soo marka hadda maanta waxyaalaha sameeya mustaqbalka waxaa ka heli kartaa waxaa kala socon kartaa Instagram-kayga aan soo saari doono koleybo soo marka haddii isdhihi sidoo kale Goobo Maxamed video soo geliyi doonaa camal hadday maadi channelkayga ku aragtid videogan oo saaran macnaheedu waxa waa video sama soo socdo waqti dhow laakiin maalinta yani videogan haddaan ku jiro YouTube-kayga aan ka delete gareeyo macnaheedu waxa waa inaan soo geli doono video isbuuc ama 2 isbuuc kadib camal soo intuu videogan saaran yahay YouTube-kayga wax soo ma geli dooni laakiin hadda maanta inaa su'aalo weydiiso sidoo kale ama hadda caawitaan u baahan tahay ama inaa aragtid oo kale farshaxanka iyo kale Instagram-ka ee sida ugu dhaqsiyaha badan meeshaas ay kala soo heli kartiin marka maanta saarbina aan sheego insha Allah inta video kadib soo arki doona yani oo aan dhaweyn koleybo waxaan leeyahay mac salaama